Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta youtube-ka idin wada salaamay maanta muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sida aan u xalin lahayn system compatibility report taas oo aan mar walba aan soo kicinayno Adobe Premiere Pro 2020 ku soo yara kacayso aniga ka shaqsi ahaanteeda ma aanan arkin Adobe Premiere Pro 2019 markan isticmaalayay ciladan ma aysan iigu soo kici jirin maanta muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sida aan u xalin lahayn system compatibility report marka daawasho wanaagsan marka ugu hore softwareka waxaan ka helaynaa start menu ayaan ka helaynaa marka start menu ayaan furaynaa marka start menu aan sidaan oo kale aan soo been gareeno haddii aadan jeclaysan in mar walba aad soo furto start menu-ga kadibna aad ka kiciso Adobe Premiere Pro 2020 ama softwarada kaleba oo aad jeclaan lahayd in aad taski barka aad soo dhigato marka hore inaad samayso drag and drop it inaad ku soo yarjiido meeshan taski barka sidaas aad ku geyso ama waxaad samayn kartaa in aad softwareka aad rabto right click aad dhahdo kadibna aad ka xulato more then aad ka sii xulato pin to taski bar markaad sidaad u jeedo taski barka ayaa inoola soo saaray Adobe Premiere Pro 2020 marka hadda Adobe Premiere Pro geena ayaan furaynaa marka sidaad u jeedo system compatibility report waa midaan kadibna waxaan leenahay continue marka hadda sidaad u jeedo Adobe Premiere Pro ga sidaan ayuu noogu soo furmay marka hore waxaan leenahay file kadib waxaan leenahay new project kadib marka projectiga ayaan magacaan u baxsanaynaa tusaale ahaan marka waxaan u bixinayaa Zemix ayaan u bixinayaa kadib marka waxaan leenahay okay ayaan leenahay marka hadda sidaad u jeedo Adobe Premiere Pro ga sidaan ayuu noogu soo furmay marka sidaad u jeedo system compatibility report sidee ayaan ugu bixin lahayn kaliya marka keyboardka waxaad ka qabataa control F12 hal mar ayaad isla qabanaysaa markaas la qabato kadib waxa ku soo baxayo boxkan ayaa ku soo baxayo kadib marka console-kaas ayaad right click leedahay kadib waxaad ka sii xulanaysaa debug database view ayaad ka xulanaysaa marka kadib qaybtan searching-ka aad waxaad ku qoraysaa report dot enable markaad report dot enable aad ku qorto sidaad u jeedo meeshan waa true haddaad fictaas inta aad ka qaado waxay noqonaysaa false ayay noqonaysaa sida judeed hadda truegi wuxuu isku bedelay false waxaa laga doonayaa inay ku ahaato waa false kadib boxkan ayaad iska soo close garaynaysaa marka hadda sidaad u jeedo ciladan weli ma aysan naga bixin marka sidee ayay u bixi doontaa marka hore Adobe Premiere Pro ga iska soo close garay gabi ahaantiisaba marka hadda aan soo close gareyno kadib waan soo mar labaad ayaan ku soo laabanaynaa Adobe Premiere Pro ga marka hadda aan ku soo laabano ciladii system compatibility report-ga markaan ciladaasi kuma soo kacayso marka hadda aan file dhano kadibna new project marka Zemix ayaan ku qoray marka wuxuu leeyahay hore ayuu u jiray projectigan aniga waxaan leenahay yes ayaan leeyahay muhiimadda ayaa waxay tahay inaan ogaano ciladaas inay baxday iyo in kale marka hadda sidaad u jeedo ciladii sidaan ayay ugu baxday meeshan systemkii issue report-ga saarnay sidaas ayuu ugu baxay marka waa intaas un ka faa'iideysi wanaagsan fadlan haddii ay tahay marka kuugu horeyso channelkan soo booqato fadlan subscribe saar fura calaamada gambaleelka si ay kuugu soo dhaca muuqaal walba aan soo gelino haddaad videoga ka faa'iiday la garee una sii share garee asxaabtaada si ay ugu faa'iideystaan insha Allah marka xoogaha maalmahan waxa muuqaal yar aan soo gelin waay waxay tahay xoogaha yar cilada dhanka codka ayaa jireen ugu dambeyntii marka waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu